way waa mahadsantahay arrinkan waxay run ku tahay nii sheegaya xaqiiqda nii sheegaya waxay run ku tahay remember couple weeks ago waxaan dhahnay waxay iibsadeen organizationkan la dhaho companygan technology weblog marka just imagine think about this nimankan tactic ay bedelayaan haddii la yiri maalintii dadka guryaha ku jiraan ma soo baxayaan habeenkii soo baxayaan way ogaanayaan taleefanada dhaqdhaqaaqooda la socdaan marka tusaale oo kale haddii og yihiin qof ay haysteen traagaraynayeen inuu 4am uu shaqo aado ama 4am meesha ka soo baxo parking lot-ka usii fariisanayaan because markuu meesha kale ka galo ma qaban karaan marka waa inay qabtaan between gurigiisu ka soo baxayay uu gaarigiisu sii socday ama uu shaqada sii galayo gaari dhiganayay inay dhexdaas inta u dhexaysa inay qabtaan weeyaan waxaan u sheegayo telefoonka waay dadkan telefoonka ay raacaan dadka qaarna telefoonka si fiican uma wada gaarin community-da oo dhan marka arrinkan waa Idris dadkan horta mission bay u yimaadeen anigu fikir wax yar ka gidisan laakiin isla pointigaas baan qabaa waa midda koowaad mission bay dadkan u yimaadeen miserablyna si xun bay missionkaas Minnesota ugu feelgareeyeen ama ugu guuldareysteen saddex siyaabood saddexdaba awalan horta jaaliyada aad u target gareynayeen waa minita Soomaalida 90% Soomaalida Minnesota degan waxay noqdeen dad sharci dalkii ku jooga waa kow laba bulshadeenu waxay noqotay bulsho iswada caawinaysa oo oral society buu Ingiriisku u bixiyay ama waqtigii mustacmarka waxaan isku kalkaalnay ama isku caawinay in dadkii sharci darrada ahaa ee la ugaarsanayay aan dhahno guryihii jooga cadaankii iyo laatiiniga kalena sidii kale ay sameeyeen marka dadkii yaraayay sharci darrada ku joogay oo guryihii aan ka soo bixin maalintii iyo siirigan la daba qabsanayo ama frimbigan meel kale saa aad uga dhacday way yartahay marka loo eego gobolada kale thani shay dhalinyaradeenii derbi kaboodka u badnaa habeenkii bay wareegi bilaabeen oo bulshadeen dhexdeeda hadda dad baa soo qoray waa been habeenkii ma socdaan jawaasiis badan baana nagu dhex jirta qolkaana xitaa dhex fadhiyaan mid kale mid baa idinka maqan macnaha sideen u dhageysanayn u wada socdaan waxaan ka hadlayaa kama hadlayo waxaan huba maaha malow awaal weeye thani shay arrin baa jirta sideedaba haddaad u fiirsatid dadka criminalska la wada qabto badankooda qaar baan la tarxiilin ee informant loo bedelaa hadalkayga si fiican u fahma ma fahamsan tahay sideedaba waa yacnahaas dowladaha si ay ku shaqeeyaan anigu waxaan xasuustaa dhalinyaro badan oo hadda ka hor xabsida saas looga guray oo criminal records lahaa Soomaaliya markii lagu celiyay dalkeena lagu celiyay dhalinyaro waxay ahaayeen halkan ku barbaaray balwad bartay khamri iyo mukhadaraad iyo waxaas afkii Soomaaliga aan si wacan u aqoonin markii dalkii tageen waxay noqdeen dad saddex raflayaasha u shaqeeya oo mishinada loo baahan yahay dhan fuliya lian afkii Soomaaligana way yaqaanaan they might talk like say wallahi laakiin wixii way fahmayaan waa fahamteen Soomaha marka qofku waxa fiican inuu dhowrsanaado sharci sideeda jirtaana ba jirta dowladahan iyo dadka u shaqeeya hadaa rabtay inaad ka nabad gashid dambi ha gelin qofka markay sharci dambi ku helaan ee xabsi galaan dadka mutarjimka u wada waayo dadka jawaasiista u ah waa wada ayo waa dad inagoo kala ah dambi lagu qabtay la yiri waa lagu tarxiilaya ama xabsi daa'im baad noqonaysaa haddii kale anaga noo shaqee marka dhalinyaradeenna ay suuqa geliso habeenkii waxa weeye nimanku ma wareegaan soo wareeg aan baxno dee waxay bilaabayaan tacticadooda waxa ka bedelay habeenkii inay ugaartaan bay bilaabayaan anigana dhowr habeen baan waxaan ka dhawaajiyay war dhalinyaradeenna boorinkaa ku batay oo waxa weeye dhalinyarada halala sheekaysto hala caawiyo haloo adeego salka dhulka ku yarahaya nimankan Minnesota guuldaray kala kulmeen eventually they have to move liana iyaga waqti iyo lacag baa ku socda way ku qasareen waa runo budgetka ku socda dawladda federaalka ee ay isku fangareynayso malaha
sustainability ma laha markaa fiiriso lacagta bonuska hoteelada kharashka gawaarida PR-ka ay sameynayaan influencerska they have to move on arrinkan waa inay mataqaana hadda waa laga yaabaa inay tacticadooda ay tahay marba gobol khalkhalgeliya oo hadda mataqaana California isugu taga ama Maine isugu taga ama waatay mar Chicago ay ku shamoomeen oo kala Minnesota ku wadaan saas waa laga yaabaa inay tacticadooda tahay laakiin ma laha sustainability badan ma laha because kharash ku socda aad u badan yahay wadankana talaabada qaadayso waa kharash ninka hadda ay arkaysa dadka qaqabanayo dawladda dee budget la'aan noqoto free kuma shaqeynayo gurigiisu aadaya maxaa ka galulay marka ha lagu sii haayo cagaha lagu sii haayo dhulka maxamed haye ku soco soo dhawa my brother maxamed from Atlanta waa ku salaamay Idris Kamal arko ayuuna kulligiin waa salaamay qolooyinkan waxa waaye wiilashan ama gabdhaha darbi kaboodka ma aragtay waxa loo baahan yahay in sidoo ka sheegay in maaragtay loo taliyay u baahan yihiin I know they kind of boring bay ku jiraan ani waxaan dhihi lahay waagii covid-ka oo kale waa inuu dhaqmaan oo maaragtay gurigooda aysan ka soo bixin qaraabada maaragtay u dirsadaan maaragtay waxyaabaha cuntada iyo waxaas maaragtay ya masaajidiyada iyo maaragtay meelaha makhaayadaha inay free maaragtay cuntada ugu geeyaan because ma shaqeeyaan mugda they got stuck maaragtay indoor ijaarkanana waxaan dhihi lahaa Soomaalida Minnesota jooga isku dardara ijaarka iyo kharashkooda maaragtay in laga bixiyo dhalinyaradaas arrinta hal mid baan ka odhan lahaa ana idinkoo raalli ah go ahead big star horta Minnesota dadku way isku xidhan yihiin atinga waxaan ku leenahay 330 masaajid oo 4 baan u malaynayaa inay isu dhow yihiin masaajidadu had iyo goor waa laga wada hadlaa waxa aan odhan lahaa hal mid ninka Somali family isagu aynu flowgrayno oo aynu cid walbaaba qof walba inuu u diro qofka kaleeto you know why afartii habeenimo imika afartii habeenimo arrin saa u garanaysaan hadda waa 7:05 afartii habeenimo ayaan ku arkay guriga waxa ila degan guriga hadda aan deganahay dad Soomaali hore isuma aqoon hay uma isu dhaafi jirnay iyo salaamu calaykum iyo calaykum asalaam u malayn maayo xitaa maanta baabuurkoodii inay dhaqaajiyeen waayo garaajka markaan ka baxayo u malayn maayo xitaa inay baxeen warna uma hayo isma naqaano hore dee hay uma isku dhaafnay marka war xaaladdu way xun tahay imika afartii qoys ee la deganaa ayaan badi goobayaa I don't know marka ma garatay auctionka kuu furan soo ahayn waa inaa marka ugu horeysid aad judge aragtid judgekii waa inaa explain samee what happened how it happened wixii oo dhan markaasid remove marka hal case wuxuu intaasoo aniga marka hore wuxuu ku dhahay aniga ahayn 6 months gudihiis arrintan waa ku dhammayn karaa laakiin 35,000 you have to inaad dhiibtid maama farxii qeyr allah ku siiyo horta lacagta mushkilad ma caqabad ma aha waqtiga iyo suurtagalnimada xuquuqdaas sidaa ku helaysid aan kow isla fahanno waxaan samaynaynaa asika community ahaan annagaa lawyer kuu qabanayna saacad consultation ah all documentationkaaga aan helno qof walaalaha kamid ah ku caawinayo waa la hordhigayaa
wixii lagula qaban karo sharci ahaan ee fudud ee caqliga iyo sharcigaba uu ogol yahay ee la qaban karo waxba lagama hakarnayo laakiin waxaan diidaynaa adiga oo patient ah haddana waxyaaba aadan isku keeni karin insaanka rar ka badan inuu qaado ma aha inaa waxaadan helaynin adigiina aad ku baaba'aysid lama rabo moogtaa inaa kaala sii shaqeeyo marka aan hubino bal horta maxaa heli kartaa oo legal ah oo adigana noloshaada iyo ciyaalkaaga aad wadan kartaan haddii ay suuragal tahay yes waa lagala shaqeynaa haddii option kale jiro oo suuragal ahayna dhinaci kale haddana kaala shaqeynayna marka waxaan isleenahay yaanan bad kale hadda gelinba oo aan sax ahayn aan saacad lawyer kuu qabano taleefankaaga waa haynaa tiimaan qabnaa annaga oo walaalaha muxsiniina oo idris oo hogaamiyo ayagaa kula soo xiriirayo sidii aan kuu caawin karno sharci ahaan iyo financial ahaanba aan ka shaqeyno kadib walaalaha aan kusoo noqono sidaas marka laakiin aan hubino bal waxa noo furan oo options oo sharciga maaragta na siinayo aan kugu caawin karno soomaaliduna kugu caawin karto insha allah inna sidaad okay walaashay yaa inna maca alcusri yusra ilaahay subxaana thank you annaga marka kusoo xiriirinaynaa hawalwelin su'aalaha badanna ha qaadin qof xanuunsanataa patient take care yourself please annagana kusoo wicin insha allah taleefankaagana waa haynaa yaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay subxaana watacaala aan u xamdina noqo alxamdulilah marka ana su-aal ban yar hayaa marka walaala dhamaysto jamaan dhamaysto maamo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama minneapolis aad degan tahay communitiyada minneapolis iyo weli dad ma la fariisatay aniga magaalada minneapolis markaan soo degay aniga waa shaqaysanaya ilmahayga qofna community lama fariisan qofna wax lama fariisan anaa shaqaysanaya ilmahayga boog birmada hayste noloshooda iyo waxooda dhan waa dabaranaya alxamdulilah rabbilcaalamiin dee wixii ilaahay keen looyarkana dee mar dambaa markaan wax isku dardarsaday oo u tagnayna wuxuu dhahay too late aniga waxaan ku dhahay keiskayga ka bax iyaalka keliya wiilka weyn marka wuxuu dhahay 20 lacagta marka hore intuu iga qaado haddana ii soo celiyo wuxuu dhahay wiilka uu ka weynaaday marka hadda maadaama dee dadkii oran guriga ku xariisan yihiin yaa see wax u heshaan yani biil maxaa cuntaan abo alxamdulilah rabbilcaalamiin mid yaro aan dhalay iyada hadda shaqada hadda iyada waa laga fariisiyey waxay ka shaqeynaysay maxaa la dhahaye home care autismka alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala nimcadiisa waa badan tahay alxamdulilah rabbilcaalamiin oo iyadaa shaqeynaysay oo laakiin hadda almost bil ma shaqeynin waxay dhaheen autism centerka waxay dhaheen ilaa amar dambe ka joog marka iskuulkeeda iska dhigataa laakiin waa alxamdulilah bas way walaal gabdhahaas meesha ku jira groupka whatsapp ku jira kula soo xiriirayo talay soo jeediyeen taladaasaan insha allah fiirinaynaa inay shaqeyso halkaana anytime kusoo dhawow anytime communitygan kusoo dhawow kusiinaynaa si alla sida uga faa'iideysan karto laguga caawin karo kusoo dhawow anytime maya jazaaka allah axsana jazaa adinkana ilaahay subxaana watacaala haniga abaalmaryo ilaahay waxaan ka baryayaa maqfiro inuu kulligeedna wada siiyo ilaahay subxaana watacaala qof kasta meeshuu jecel yahay wuxuu jecel yahay ilaahay raalli ka yahay inuuna wada waafajiyo ilaahay subxaana